waad la socotaan qolada ay marka hore isku dawladda ahayd imikana isku magaca dhownahay ee xamar ka talisa dagaalada ay ku jiraan dee waxay kala socotaan miidiya xawla caalam yani Soomaaliland maalinta wax yaroo horumar gaaraan dagaalka badan bay qaadan shalay waa arkaysaan saddex warayso istaba dhigeen marka wax kala waayeen safiirka Soomaaliya qolada xamar jooga ee Washington warbixintu bixi waa dhageystay madaxiina ee waa la dagaalamayna sida Ukraine baan gacan u qaadaynaa waa goosasho Allah ka afi nafti hafar afka mudkatiga wale wasiirka khaarijiga hadana raaciyada hata waxa ku hadaya wasiirkooda China kala hadaya waxaan doonayaa inuu sheego qolada xamar China iyagoo wasiirka xigooda socdo loo yimaadeen baan ku niri oo haddana ku leenahay ciidana luqunta qaban mayso waxaan aanan doonayn noo tilmaamayso ciidan wanagu la xiriirayna ciidan loo xiriirayna ciidan loo sheegi mayso sidii waftigii wasiir khaarijiga ugu horeeyay ay u sheegeen ma go'aan shakhsi wasiir iyo guddi ka soo baxay wuxuu ka soo baxay qof kasta oo Soomaaliland daa kastu yahay ee meel joogo inama yar oo inta markii askaasharadii iska meelaha u dhoofeen ee talanta Yurub wax ku soo horteen soo shaqada oo siyaasadda loo dhibayo tan hadal baad sheeysana wixii ka dhacay wixii ku horbaday aabayaashii yoshi weydiiya Soomaaliland maxay goosatay wixii ku dhacay Soomaaliland qaatay weydiiya erayda fuduska ma tirahdeen Soomaaliland mid cid ugu hanjama ilaahay baa amsantahay xorideeda ilaashanaysa halkaas ay fursad u taagan tahay ninka hadana waa iska in hadle qodaan inta saaran aad iyo aad waa mahadsantiin wassalaamu calaykum.